inkastoo bulshada muslimka ah aanay cunin hilibka doofaarka, haddana waxaan soo bandhigaynaa waxyeellada uu caafimaad ahaan u leeyahay jirka bini'aadamka. dhammaanteen sidaan wada ognahay, diinteenna sharafta badan ee islaamka waxay naga xaaraantinimeeday cunista iyo dhaqashada xayawaanka doofaarka. waxaana jira aayado iyo axaadiis xaaraantinimeeyey hilibka doofaarka. umana bannaano qofka muslimka ah inuu cuno hilibka doofaarka ilaa inay jirto daruura mooye ama uu naftiisa ku badbaadinayo. waxaadna ogaataa xikmadda ilaahi ayaa ah in wixii lagaa xaaraantinimeeyo aysan faa'iido kuugu jirin, wixii laguu xalaaleeyana ay faa'iido kuugu jirto. waxaana xusid mudan in allaah uusan micno la'aan iyo ujeeddo la'aan u abuurin xayawaankan. ugu horrayn aan wax yar ka sheegno tilmaamaha doofaarka iyo dabiicadihiisa. maraakista baxsiga waddamada gaalada waxay isku waafaqeen in xayawaanka doofaarka uu ka duwan yahay xayawaannada kale ee caalamka ku nool, sida astaamahan hoos ku xusan. doofaarku waa xayawaanka keliya ee marka uu wax cunayo aan urin ama aan iska eegin, ee iska cuna wax walba agaarkiiska agdhow, sida qashinka, saxarada, bakhtiga, xitaa hadduu qurmay. waxa uu sidoo kale cabaa kaadidiisa. sidaa ogtihiin, xayawaannada kale waxaa lagu yaqaannaa shayga ay cunayaan inay marka hore iska uriyaan ama ay iska hubiyaan, kadibna ay cunaan. balse doofaarku sidaa ma ahan oo waa uu ka duwan yahay. ma dhidido jirka doofaarku, maxaa yeelay wuxuu ka samaysan yahay waxa la dhaho isfanj, oo sida isbuunyada oo kale ah oo aadna u dhuuqa wasaqda. tanina waxaa loo arkaa inay tahay musiibo, waxaana la og yahay in dhididku uu yahay qashinsaarka jirka. doofaarka waxaa jismigiisa ku tarma waxa la dhaho dufayliyaad ama goryaamo. markuu dhintana saacado kadib waxaa ka soo yaaca goryaamo. waxaana la ogaaday dadka cuna hilibka doofaarka in jirkoodu cudur ka qaado goryaanada, kaasoo inta badan ku samaysma jismiga doofaarka. hilibka doofaarka karintiisu waxay qaataa dhowr saacadood, sida uu sheegayo Dr. Henon oo ah nin inta badan research ku sameeya xayawaanka doofaarka, ayaa yidhi maalin annagoo joogno isbitaal lagu daweeyo askarta ayaan waxaan aragnay doofaarro ku xunsan sanduuq qashinka lagu rido oo cunayaan faashadaha malaxda iyo dhiigga leh ee la soo tuuray. markay arkeen maamulka isbitaalka waxay ogaadeen kalabar qashimada wasaqda ah in la siiyo doofaarrada, sidaasna bukaannada isbitaalka lagu daweeyo waxay cuni jireen hilibka doofaarka oo ay ka buuxeen wasaqdii iyo faashadihii malaxda lahaa ee uu cuni jiray. cudurrada laga qaado doofaarka. cudurrada laga qaadi kara doofaarka way fara badan yihiin, waxaana inta badan la xaqiijiyey inay gaarayaan 450 cudur. 57 ka mid ah waa gooryamada halista ah ee jirka bini'aadamka ku tarma. dhiigkarka ayaa ka mid ah cudurrada laga qaado cunista hilibka doofaarka, waana midda keentay in bulshada Maraykanka ay badankood qabaan cudurka dhiigkarka maadaama aad looga cuno hilibka doofaarka. xagga tarmidda ama korriimada doofaarka. doofaarka wuxuu ka mid yahay bahlaha sida dhaqsidaa ku tarmo, waxaana ugu taran badan kan ku nool waddanka Shiinaha. waxaa la sheegaa inuu cunugga caloosha ku sido muddo 3 bilood ah, taasoo ka dhigan sannadkii inuu dhalo 3 mar, halkii marna waxa uu dhalaa 3 ilaa 12 cunug. jir ahaan dhaqsi ayuu u koraa doofaarka. markuu dhashana culayskiisu waxa uu dhan yahay 2 kilogaram, markuu sannad gaarana waa 112 kilogaram. sida ay sheegaan dadka baarayaasha ah, waxaa sabab u ah hormoonka koritaanka jirka oo ku badan xayawaankan. dadka aan muslimiinta ahayn ee isticmaala hilibka xayawaankan way og yihiin badankood cudurrada laga qaadi karo. si ay u taxadaraan, marka hore xayawaankan waxaa loo sameeyaa xerooyin u gaar ah. 24 saac kastana waa la dhaqaa xerada si ay bakteeriyada ugu dhalaan xerada dhexdeeda. sidaa ogtiin, baalkan waa cudurro badan yahay, waxayna siiyaan talaal joogto ah iyo daawooyinka la dagaalama bakteeriyada halista ah. balse si walboo yeeleen kumaysan guulaysan inay dabar jaraan bakteeriyada uu xambaarsan yahay xayawaankan doofaarka. xigmadda loo xaaraantinimeeyey hilibka doofaarka intan oo keliya laguma soo koobi karo oo way fara badan yihiin. waxaana kuu rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday muuqaalkan. haddii aad haysid xog kale oo dheeraad ah oo ku saabsan xigmadda loo xaaraantinimeeyey hilibka doofaarka, nagula wadaag qaybta kommentiga. mahadsanid.